وقد قام وقد قام وقد قام qofka naafada ah haddii ay wax barato waa jabano kabane, haddii aysan waxba baranna waa jabano jabane. waa erayo allaylehe ka turjumaya mudana inaan u isticmaalno sheekada laba macallin oo iyagoo naafo ah qur'aanka bara carruur Soomaaliyeed. jibriil nuur maxamuud iyo nuur maxamed cumar waa macallimiinta dugsi qur'aankan oo ku yaala degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho. waxay saaxiibo ahaayeen muddo 20 sano ah, iyagoo waqtigaas dheerna nasiib u yeeshay inay soo saaraan jiilal kala duwan oo ay soo bareen kalaamka Alle iyo duruusta kale ee diiniga ah. Macallin Nuur ayaa aaminsan haddii dadka naafada ah ay wax bartaan inay ka gudbi lahaayeen duruufo badan oo maanta haysta. wax la bartaana waxa ugu qiimaha badan uu yahay qur'aanka. macallimiintan waa dadkan ujeedid macallinkan iga soo horjeedo kale macallinkan saaxiibkeyga waaye waxaan isku baranay xagga diinta waxaan barnaa ilmaha ardayda marka jiisnimadana ma aha macnaha waxbarasho kaliya ma waxbarashada waxay ku teedsan tahay qofka jiis naafo ma yahay mise ma aha qof naafo ee wax waa baran karaa waxbarashadan aaday u fiican tahay qofka naafo doow yahay wax uu qabsan karaa hadda wax uu barto ma fahanti marka qur'aankaasaan isku baranay marka ardayda waxaan nahay ilmaha ardayda dugsiga wuxuu furan yahay muddo 20 sano ku dhawaad waay 20 sano uu furan yahay arday badan ka aflaxday macallimiin badan aan ku wada joognay ma sha Allah hadana waan wadnaa wali waan sii wadnaa. Cabdiraxmaan Aweys Ibraahim waa aabba naafo ah oo degan xaafadda uu dugsi quraankan ku yaalo. wuxuu sheegayaa inuu ku faraxsan yahay afartiisa carruurta ah inay macallimiin u yihiin dad baahidiisoo kala qaba kuwaasoo wax ka fahmi kara duruufihiisa nololeed. Cabdiraxmaan Aweys ayaa sidoo kale xusay in carruurtiisa ay dugsigan ugu dhigtaan si bilaash ah maadaama uusan isagu shaqayn nolosha qoyskiisana ay ku tiirsan tahay hooyada oo xamaalata ah. dugsiga qur'aanka aan joogo wiil ilmo ayaa ay dhigtaan 4 cunuga ay dhigato 4 horeysana oo maaragtay waa ka aflaxeen dawladda ku roon yahay macallimiintan arkaysaan walaxa ilmaha ay soo bareen ilaa ay hadda walaxa ay baro hayaan anigu waxaan ahayn curyaane wax lacag iga ma qaataan saas awgeed waxay yiraahdeen ilmaha iska kayso naga curyaan nahay ayaga saas way wax ku soo barteen. Macallin Nuur Maxamed Cumar ayaa ugu dambeyntii sheegay inay jiraan waxyaabo ka dhiman dugsiga sida rooga ay carruurtu ku fariistaan kitaabo loox kuwaasoo haddii la helo ardayda u fududeynaya barashada iyo xifdinta qur'aanka kariimka ah. marka ardaydan ujeedid wax dhib badan laga soo maray dugsiga xaafadda wax dhan ma sha Allah hadda meel fiican aan maraysaa Ilaahana barakeeyo insha Allah. dugsigan waxa u baahan yahay roog lagu fariislaayo ka dhamaaday waxyaalo badan jirto oo furfuran oo xirxiran marka inta Allah Taala intaas aan ku soo koobaa. sheekadan waxaan daawadayaal ka baran karnaa in qofka naafada ah ee wax bartay uu ka fursada badan yahay midka aan waxba baran.